maanta waxaan halkan isugu nimidnay inaan qadiyadayada cadayno bareeraha iska taagno shirka beesha Sacad Muuse ay ku qabsanayso magaalada Agabar leeyahay degmada Agabar inaanu taageersanahay baan halkan ku cadaynaynaa oo si weyn u taageersanahay shirkaasina uu yahay shir nabadeed oo ay beeshu qabsanayso. Alhamdulillah rabbil alamin al-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Amma ba'da, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. maanta munaasabadan aan isugu nimid ama xafladan runtii laba qodob ayaan rabaa inaan kaga hadlo. waa mid beesha Sacad Muuse oo ka mid ah beelaha Somaliland in muddo ana doonaysay inay ayaheeda ka tashato sida beelaha Somaliland ay u shireen iyaduna ay u shirto ayaa waxa jira culays dhinaca xukuumadda. waxaan leenahay madaxweyne bulshadani waa bulshadii ku hagar baxday ee ku soo dooratay maanta waxay ka mudnaayeen inaad tixgeliso wax la qabato ma yahayn culays iyo cadaadis iyadoo la adeegsanayo xukuumadda ama xubnaha qaar ka mid ah in maanta beeshii burbur iyo kala jab lagu rido. diinta islaamkuna waxay ogoshahay in bulshada la mideeyo ma aha bulshada in khilaaf lagu dhex rido. marka waxaan leenahay madaxweyne bulshadani sidii ay kuugu listay ugumaad hambayn waxaan doonaynaa inaanu ayaga ka tashanno shirkaana sidiisa ayaanu itiraafsanahay in loo qabto loona tixgeliyo. xukuumaddana waxaan leenahay faraha kala baxdo. waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka cambaareeyo falkii maalinta dhaweyd ka dhacay degmada Gabiley ee lagula kacay mid ka mid ah wasiirada ka mid ah xukuumaddaada. runtii wasiirkan oo ixtiraam ka mudan bulshada Somaliland guud ahaanteed gaar ahaan gobolka Gabiley waxa lagula kacay falan oran karo waa fal argagixisa oo aan ku habboonayn habdhaqanka xukuumadeed iyo habdhaqanka islaamka midnaba. waxa weeyaan waxay tusinaysaa aragtidaasi maanta isagoo ka mid ah wasiiradii xukuumadda ugu mudnaa in ay kala qaybsanaan aad u ballaadhan ay ka jirto iyadoo oo xukuumadda xubnaha barkoodna ahmiyad gaara la siinayo xubnaha badhna lagula kacayo falal aan munaasib ahayn. waxay bulshadu kaaga fadhidaa haddii aanad raalli ka ahayn arrinkaa oonad adigu aanad rabin oonad oggolayn inaad tallaabo ka qaado ciddii arrinkaasi ay ku aroorto. assalaamu calaykum. ilaahay khayrkayna waafajiyo. waxaan doonaynaa maanta halkan aanu iskugu nimid kadib markii aanu hayn kari weynay xumado badan oo nagaga imanaya dhinacyo badan ayay xumadii maanta markii aanu ka soo dareeray ilaahay samiriyay imaanay naga siiyay isagana ha u naxariistee aaskii odaygii weynaa ee guddoonkiisa la wada raaci jiray oo baryahanba naga jiifay intii uu jiifayna aad ka arkaysaan gobolka Gabiley sida ay taladiisuna u jiifsatay ayaa maanta waxay garteen ragga halkan iskugu yimid inaan cidna u hadhin ceel oo qodnay. sidaa darteed baanu halkan maanta iskugu nimid inaanu arrimo badan oo gobolkan ka qabyo ah ka hadalno. kow waxaanu si buuxda u taageersanahay shirka beesha Sacad Muuse ku qabsanaysa Agabar oo la mid ah shirarkii beelaha habar jeclay ku qabsatay Garadag, habar Yoonis ay ku qabsatay Daalo, ciidagala uu ku qabsaday Salaxley. tanina waliba waa beelaha way si kala mudan yihiin oo halganka lagu kala mudnaayo deegaanka lagu kala mudan yahay dawladnimada lagu kala mudan yahay. anagu waxaanu nahay wadnihii wadanka mar haddaan wadnihii wadanka nahayna in la taataabto aan bal carqaladeeyo waxa weyn dalkii baa la carqaladeeyay. marka in intii dadka qaar dhiigga aad ka qaadeen madaxweyne markaad aragtay inuu dhidig yahay aad noo soo dirto oo tidhaahdo tawdhaho reerkiina soo baabi warninka sidaa la leeyahay waxaanu ku leenahay sabankii xumaadaba rag baa sahaydanaanays ragga siinka bawdada marsadee way sajilayeen sabanow nimaataay u dhibo waa sahyuuniyad bay meesha maraysaa. marka waxaanu ku leenahay adiguna yaan lagu soo dirin oo ha oran hooyadaa soo dil arrin ha u qaadanin hooyadaa soo cay arrin ha u qaadanin reerkiina soo xumee arrin ha u qaadanin. waxa weeyaan waa la noolaanayaa waa la jirayaa waa la joogayaa. markaa inamadaana waxaan leeyahay yacni nin baa beri la yidhi iyadoo dagaal xun berbere ka socdo ayaa la yidhi reerkaaga beddeloo reer kala sheego si aanu kuu qaadno ood u badbaado saa la noolaadee buu yidhi. war waxaanu leenahay kuwa la soo dirayo saa la noolaadee sidan kuma tegayne dad baa hadhaya waqti baa hadhaya taariikh baa hadhaysa. waxaanu leenahay
wax lala yaabaa madaxweyne haddii aad maanta ogolaato in wasiiradaada qaar ka mid ah albaabada laga soo xidho weliba kuwii ugu mudnaayeenu islahayn madaxweynuhu maalin buu dhalay waxay reer Somaliland yiraahdaan madaxweynuhu laba inaanoo wasiirada ka midu midna maalin dhalay midna habeene kii aad maalinta dhashay in maanta Gabiley laga qufisho waxa weeyaan berrina adiga laga qufulin waayo falka xun lama bilaababa wadada xun lama jeexaba xukuumaddaadu inay noqoto tu la kala naqaysto oo dad yaroo tuulo jooga ay wasiirada kala reebaan oo qaar xumeeyaan qaar waxde ma haba arrin hagaagsan ma xukuumaddu waa inay qiimo yeelataa xukuumaddu waa inay karaamo yeelataa xukuumaddu waa inay kala dambeyn yeelataa xukuumaddu waa inay sharciga iyo dastuurka u degan ay ku dhaqantaa haddii taa la waayo adna madaxweyne noqon maysid wasiiraduna wasiirra noqon maayaan meeyaradu meeyarra noqon maayaan xogeyaashu xogeyaal noqon maayaan bara saab noqon maayo waxaan wax lagu yahay xoog maaha nin xoog ku fadhiya meesha ma jire nin walba sharci baad lagu keenay meesha oo uu ku jooga sharciga haddii la jabiyo nin walba sidoo ahaan jiro u talaabsani bal ninka marka laga talaabo wanaagsanaa aan aragno haddii la yiraahdo nin walba sidoo ahaan jira ha u talaabsado dad badan baa tuur yeelanay dad badan ayaa tuur yeelan oo isaan u talaabsan waay waxaanu leenahay madaxweyne wadanka waxyaabo badan baa ka jira qoladii toosinta iyo wada tashigoodii waniga aanu weeyday inaan taacaloosheeda ninkii gaajo ka taabtay ninkii xalus ka taabtay heshiin maayaan markaa waxa weeyaan adiga garanaya waanagii ku nidhi kuwan halgankoodii madaxweyne u ahaa kuwan yaryarra adiga keenay oo garanaya waddankeenu inuu dagaalo badan baa inoogu socdo xaggii siyaasadda oo UNT baynu saynaa muqdishoynu saynaa dad meeshoodiiba qasan tahay baynu ka ammaan laanahay intaynu dagaalkaa u midoobi lahayd haddaad macooyada dhexdeenna ka jeexdaan dee waxbay noo hagaagi maayaan baasha dhexdeenna ka saara xaggay leedahay dagaalka aan u jeedinno dadkana inta lab madaxweyne diro dhidigu adna meel ku geyn maayaan annagana meelna geyn maayaan shirka Sacad Muusana waa muqaddas dawladnimada Soomaalilandna waa muqaddas wasiirkana xaalkiisa waxaanu kaaga fadhinaa wax la yidhiinantu haddii la yidhaa hebel ma lagu meeriyay aamusto way ogoshahay oo sakuud ridal leeyahay haddii aad aamusto waad ogoshahay weeyaan maxamed cabdilaahin la xumeeyo taasina waxay keenaysaa arrin xun ayay horseedaysaa arrin xun bay horseedaysaa inaafacayn arrin aan inaafacayn bay keenaysaa markaa waxaan leenahay madaxweyne dalka adaa lagu igmaday adaa madaxweynihiisiya ayayna taariikh xumi kaa hadhin taariikh wanaagsan inay kaa hadho ayaan u diyaarnahay waayo waxa adduunka ka soo hadhaa waxa weeye hebel muxuu ka tegey maxaa lagu xasuusan doonaa muxuu inoo sameeyey wax badan oo samaysay oo darajadii aan kuga hambalyeynayna wax ku siiyeen badan baad aragtaa laakiin wax kuu sheega lama arko nasteex baan ku nahay waa ummadii aad taqaanay waxaan kaloo doonayaa halkan inaan kala hadlo nin la igu yidhi waa xogeyaha gudoomiyaha golaha dhexe ee kulmiye ninka hebelka Shabeel baa la yiraahdaa hebelka Shabeel wuxuu yidhi waan reer galbeedo ka sii daba dheer waxa weeyaan xaashakallah xaasheen limika xisay xumihi waayab meeshan waxa la yiraahdaa Shabeel oo Gabiley xusbiga kulmiye iyo Gabileyna way yaqaanaan qiimaha reer Gabiley leeyihiin waa Florida oo waa la yaqaan marka ka sii daba dheer wax daba dheer adiga garanaya marka waxa weeyaan aflagaadaduna ma fiicna mas'uulkii golaha dhaxana waa tahay waxaanu leenahay Gabiley ma geydee xaal ka bixi arrinta xaal golo jooga laga doonaya haddii kale in badan baanu aragnay kuna soo doonto far ku gabaday markii dambana waa in salaamaya waxaan marka hore ka hadlayaa shirkaaga bar aad baan u taageersanadaan reer Gabiley lahay waxaan leeyahay dariiqaad ku joogtaan waa kii dantiinne yaan la idin kala didin awrtan doobinaysana intaad duu tidhaahdaan dabarada isaga xidha inta dayracadkee kale iyagana dibsuun dhahaban leh yaan shirkaasi noqonin mid siyaasiyiinta lagu kala raaco waa inuu noqdo mid danaha bulshadaasi oo bulsho weyn maanta ah lagu halkaa iyadana lagu taageero waanu taageersanaa reer Gabiley tan labaad waxaan ka hadlayaa oo halkan fariin uga dirayaa madaxweynaha dalka haysta waxaan leeyahay madaxweyne sidaanu ku dooranay ee ay Gabiley kuugu heelisay ayaanu ka doonaynaa inaad noogu heeliso oo aad laga dhex arko inaad taageersan tahay Gabiley sidaan anagu ku taageernay mar waxaan leeyahay wasiirkii halkan dhibaatada loo geystay waxa wasiirkii kugu cuslaayay taageersanayd ee tiri xataa bedeli maayo aad oran jirtay
maantana waxa halkaas lagu meeray oo meel dawladeed isagoo aan xilka laga qaadin oo wasiira oo hawl wasiirnimo gudanayay hawlihiisii shaqo ayaa halkaas iyadna dhibaato kala kulantay waxaan leeyahay haddii aad ka jawaabi weydo taas waxaan u arkaa inaad ka dambaysay oo in sharafta laga qaado adoo aad ka dambaysay maan leenahay waxaan leenahay reer Gabiley oo ku suganaay waxaan filanaa sidaad uga jawaabi doonto arrintaas waxaan rabaa laba arrimood oo kaliya inaan fariino diro marka koowaad waxa weeyaan taageerada aanu hayno haddaanu nahay bulshada reer Gabiley qabashada shirka Sacad Muuse uu ku qabanayo tuulada Agabar waxaanu leenahay oo ka tirsan degmada Gabiley waxaanu leenahay shirkaasi wuxuu la mid yahay shirarkii hore ee ka dhacay marka waxa weeyaan Soomaaliland ee beelaha kala qabsadeen marka waxa weeyaan shirkaasi ma rabno in la carqaladeeyo dhibaato lagu sameeyo waa shir ay beeshu danaheeda kaga tashanayso marka waxa weeyaan siyaasiyiin culimo aqoon-yahaniin iyo waxa weeyaan dadka gobolka oo dhanba waxa weeyaan shirkaasi waxaan ugu baaqanaa inay ag istaagaan sidii uu guuleysan lahaa ta kale waa shir Soomaaliland jiritaankeedana waxa weeyaan dan weyn ugu jirto taas waxaan kaga baxayaa shirka marka waxa weeyaan talabaad waxa weeyaan waa ilaalinta dawladnimada ilaalinta xukuumadda tacbaan waxaan ugu baaqayaa inay ilaashato dawladnimadeeda iyo karaamadeeda marka wasiir laga xidho albaab macnaheedu waxay ka dhigan tahay xukuumaddii tacbaan markii hore baa ahayd xukuumadda tacbaan in ay weyday haybadeedii ay ku lahayd weliba deegaanada kuwa ugu xooga badan ee laga soo doortay xukuumadda tacbaan taa dib ha uga laabato way taas waxay keensan doontaa in ay waydo maalinta dambe in madaxweyne Siiraayo gobol kasta uu tago albaabka laga soo xidho tasaddexaad aan rabaa inaan ku daro waxa weeyaan xukuumadda waxa laga rabaa inay u cadaalad fasho oo ay ilaaliso hantida ummadda maaliyadda waa inay ilaaliso oo aan cid gaari aanay waxa weeyaan ku campaign ku gelin waa inay hantida ilaaliso madaxweyne Axmed Maxamuud Siiraayo haddii xukuumaddii udub lagu eedan jiray in hantida ay ku tarkifasho oo si khaldan loo adeegsado xukuumadda Axmed Maxamuud Siiraayo waxaan ugu tacbaan waa in hantida ay ka ilaaliso in ashkhas gaari ay ku campaign gareeyaan وما سنتي على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أنا قوين بدنا تعورن معي لكن وحنا أورنا يا لو كلمة أو وحيد ورث عن أورنا هذا إنك هذا كيجو ريبة لما يستري كو وحن ولا يابني أنا قو حكومة الصومال ما أنت جرتها waxaan daba dhigay ee ay uga hadhi laadahay shirka beesha Sacad Muuse waxay ka mid tahay beelaha reer Soomaaliland xuquuq waxay u leeyihiin bay iyana u leedahay waxa shirka Sacad Muuse xukuumaddu ay uga hadhi laadahay ee loo qashqashaya arrintaas waa arrin keenaysa waxa dhowto meel fog laga dooni doono waxaynu ka wada marxaatinaay xukuumadda Soomaaliland waxay ogolaatay khaatumo shirkii khaatumo lagu qabtay dalkeena oo lagu diidanaa oo fasax lagu siiyay waxa shirka beesha Sacad Muuse markaa ka wareey anagu ma garayno waxaan leenahay markaa shirka Sacad Muuse waa la qabanayaa haday xabad tagaysay Ilaahay mooyaan cidna ka magasan waa la qabanayaa shirka Sacad Muuse waxaan u ballan qaadanaa cidna ku xumayn mayno shirka cidna lagu xumaynayo taasi waa taa talabaad waxa weey توزيرك ganacsiga محمد عبد الله ورت محمد عبد الله هدو قبل هدو محمد عبد الله يلون وايو وزير كلا يعد كلا يدولات كلا عد يلانيسان وقرام معي ما نجرتو عد يلانيسان إلا حكومة أي رالي قليل عد كبحين سنة وزير دنبو حكومتك كترسلو قبل يمنتو ولا مجر أعلاني وزير كدنبي ما دنبت قليل دي سيساها كمسؤولة taasina waa taa
محمد عبد الله وزيركم ما أنتي وكم مقناطات كان مساكين تاهل لبعتك سنضوط بقى كحرسنا ما أنتوا الاعتراف هذه يبقى حركات تليانية كسر في فري أيها قبل اللي قالوا وريق ما دعس محمد عبد الله دبيلي عندنا كما قصر معي وسيكو حل قرن بوهاي يصيرهان لكن قبل كل شو قبل كل كسر عندنا كما قصر معي وعنو لنا أرن كان حكومته مال عاد هيسكت تاكتو أو رالي قليل عاد هكبحس أنا أقول عيد كلا ولا أقول إيو هبل باء تاجر منا أنا أقول حكومة الصومال اللي أنا جفتان واحد سنة وزيرك سيد الله هيبدي سمال الله قدعي حكومة الله هاي سنة والسلام عليكم ورحمة الله عليه وسلم هل كان واحد السبوني من غير إيه وضياء الباقي كنت لما كان بدون من أقول لها عنه بدي واحد ويان أنا كره اللي قلنا وزيرك كنت فالكي فوش حما اللي أقول لك عاي فالكاس فنتي أنا وحلي ما نهان رجع كجل جشبان نهاي فال حنبوها الله بريري وأنا منّت استالو سمايو and فالدقة كحنبوها فالدقة كواحد دين تكحنبوها فالدقة معمولها كحنبوها and عندي كدم بيسنا فالحمد أيق على مركز وسير كوان نقنايا وسير كوجو مساك علوس وحوي وسير هذا الصومالي لان أريمه هندي بدها لكم كجارسية وأن أبنهاي جسنمديسة يا بروفيشن كيسة يا شقديسة يا قونتيسة أنت والله قرية عربية عجبة وقريسة وحللي عندنا كسوة شيء وعيو وأنا أبنهاي إنه قبل كي قبلي هاي وحلاها مركا اسكدا بلا آذن هذا الضوشيش براها كوها سواه لي نبديس تعال كاسا كغا بخايا عيد لكن فعل كاس سميسay waxa koow ka ah cid maanta maamulka u igman ee halkan waxa weeyaan de maamulkeeda haysta waxba cid kale ku riixi mayno laakiin cid garatay marka uu guri ugu soo galay waxa weey hoolkii dawladda hoose ugu soo galay garan weeyday soo dhawow walaal maxaad u timid xitaa dan la soo ogeysiinba soo dhaweynta waxa ahayd in sidaa soo dhaweeyo laakiin taas waxa ka dhigantay waxa weey daciifnimo maamul khibrad la'aan halka ka muuqata taa intaas kaga baxaya waxaan leeyahay waan ka helignay xidhamaanahan ragii ka gilgishay ee waxa weeyaan sida fiican u qaabilaban kamidnahay tan kale waxa weey gobolkan Gabiley waa xarunta Saacad Muuse taama ma ka sheegin waxa weey waa xaruntii kulmiye ku soo baxay codka ugu faraha badan leh halkan laga siiyay taa waxa weey abaalka cid walba oo haysa gobolka Saacad Muuse ma haduu shil qabsanayo de hooyada ama meesha Saacad Muuse waa halkani inay taageerto iyadoo dhameystirana waajib ay nagu tahay shirka Saacad Muuse inuu guuleysto oo wax wanaagsan ka soo baxo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa xukuumad iyo mucaaradba in la taageero oo la soo dhaweeyo ayaanu halkan dhambaal uga diraynaa dhammaan bulshada Soomaaliland intaas ku soo laba eray umba ka dhawaajinaya labada eray waxa weeyaan in markaan xisbiga ahayn ama ururkan ahay rays in dhow la yara layla aadan dhow la yare yaa yiri xisbiga kulmiye isaga iskugu filan mucaaradnimo tiila maanta ayna horta kelmadaas runtii inuu maanta dawladdii amba wasiiradii ay laba waji kala yeesheen taasina waxa abuuray baan malaynayaa xukuumadda maanta oo qaybna gacan siisay qaybna magarasa marka waxaan leenahay hawshaasi ka dhacday halka Gabiley madaxweyne arrintaasi haddaad si fiican uga jawaab weydo cidii waxa geysatay runtii waxa maanta adaa beeray cid kale uma haysan haladaadkaasina inaad saxdo adaa u madaxweynaha jawaab degdegana waa ka sugan anigoo ku hadlaya magacaygu ah Axmed Saciid Kibaar saasan qodobka labaad ee kale in dhaafay waxa kamid ah shirkii Saacad Muuse waxa weeyaan reer waliba jiritaankiisa waa mid muqaddisa oo lama dhaafaan taasina ummadda reer Soomaaliland gudayo dibad ya magacan cidda ku abtirsataba inay taageero buuxdo oo hiil iyo hoolba aan isgarab taagno ayaan iyagana
yaanu baaqayaa wassalaamu calaykum maanta jirta arrinkaasoo ah ta koowaad oo ah shirka beesha Sacad Muuse waxay ka mid tahay beelaha Soomaaliland dega ee shira ee mar walba shir qabsada haddaan naayna ku dadka u dhashay gobolkan Gabiley ee ku abtirsada beesha Sacad Muuse rag iyo dumar waayeel waxgarad culimaa u diin dhalinyaro waxaanu taageersanahay shirka Sacad Muuse ee ka dhici doona degmada Agabar ee gobolka Gabiley taasi waa taa cid walba waxaan ku boorinayaa oo Sacad Muuse u dhalatay war in dadku waa qabaayil qabiilnimadeena iyo reernimadeena iyo aayaheena aynu kaga tashanna halka oo aan hebel iyo maxay aan lagu kala tagin taasi waa ta koowaad ta labaad xukuumadda waxaan leeyahay falkii maalintii dhaweed ka dhacay degmada gobolka Gabiley wasiirka ganacsiga Maxamed Cabdullaahi arrinkaasi u tunoo taale calooshayada ay dib u soo kicisay inta uu haystay Maxamed Axmed Siiraan dalkan uu qabsaday oo nu tirsanayna inaanu nahay dadkii u hiiliyay codkii u badnaa bixiyay isna wuxuu nagu abaal guday oo waajibkayga ka dhigay inuu cishaba hal doorkayaga afar cisho ku gowraco kan waa kii noogu dambeeyay haddaad intii hore daba ku badbaaday mudane madaxweyne annagu waliba intaa horeba kugu dulqaadayno karaamadaada iyo dawladnimada iyo wax sharfaynay hadday noqoto in sharaftii dawladnimadaadu ay noqoto in wasiirkaagu kabalaankan lagaga eriyado adiguna berri haddaad Gabiley timaad sidaa ay islamida ku tala haddaad ka jawaabi weydo arrinka oo talaabo cadal jibraab ku qancin weydo wax ku yaalo halkan kugu hayna ma jirto assalaamu calaykum waraxmatullahi